بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد walaalyaal التواصل الاجتماعي ama السوشيال ميديaha ama baraha bulshada ay ku kulmaan nakiro walba waxa uu ka yeelaa macrifo yacni cid walba oonan la garanaynin wuxuu ka yeelaa cid la yaqaano jaahil walbana waxa uu ka yeelaa caalim cid walba oo aanan waxba garanayninna waxa uu ka yeelaa cid wax garanaysa mufsid walbana fasaadkiisa waa meeshii uu ku intishaarin lahaa mid walbo ahlu khayr ahna waa meeshii khayrkii iyo dacwadii uu ku intishaarin lahaa waa sayf laba af leh midna khayr ah midna shar ah qof walboo muslim ah waa sidoo u adeegsado halkani waxaan doonayaa inaan fariin ugu diro saddex qolo midda koowaad waa eedo iklan show eedaan u isticmaalayaa maadaamay maamo weyn tahay oo iga weyn min baabil ixtiraam iyo inan yar ay beri dhoweyd barnaamijkeeda iklan show ay ku soo bandhigtay oo magaciisa yahay axmed abubakar cabdi fariinta saddexaadna waxaan u dirayaa waalidiintii dhalay axmed eeda iklan barnaamijka awaa'ilkeeda waxay ku bilowday hadalkan axmed abubakar cabdi oo ah inan yar oo ilaahay talentis waxay leedahay inankani ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu siiyey taalanti yacni ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu siiyey hibo hibada ay sheegayso iyo taalantiga ay sheegayso bal ila eg xaqiiqatan raqsi iyo ciyaar iyo boodbood hibo maaha xaqiiqatan ani ahaan waxaan dhihi lahaa hibo iyo taalanti ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu siiyey cabdiraxiin yare bal ila eg asigana waxa uu samaynaya الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته marka hore magacaygu waa cabdiraxiin axmed maxamed waxaan ka hadlayaa ahamiyadda ay hooyadu ugu jirto bulshada markaan leeyahay ahamiyadda ay hooyadu ugu jirto bulshada waxaa laga yaabaa qofka bini aadanka ah ee 60ka gaaraya noloshiisa marka laba loo qaybiyo badh inay isagu soo kaabto taasina waa run ama xaqiiqo dhacda qodobka koowaad xaqa ay diintu siisay ama xadiis ha noqoto ama ayadihii ilaahay subxaana wa tacaala ha noqoto waxaa laga wariyey nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu nin u imiday kuna idhi man axaqa annaasa ilaya yaa rasuula allah aniga agtayda dadka iyoma igu khayr badan kaan xaqa siiya inta mudnaanta wuxuu ku yidhi markii koobaad hooyada misuu mar labaad ku celiyey misuu ku yidhi haddana hooyada mar saddexaad buu ku celiyey haddana hooyadaa buu ku yidhi saddex jeer markaa ku celiyey maaraflaadkii buu ku celiyey misuu ku yidhi marka dambe waa aabbaha waa inan da' yar oo axmed la da' ah wamaca daalika jecel in uu qabto shaqo la qabto midda ugu qiimaha badan oo ah ilaahay subxaanahu wa tacaala xaggii dadka in lagu yeero sidoo kale waxay tiri eeda iklan inankani waxa uu ka farxiyey kumanaan caruur soomaaliyeed wuxuuna u yahay tusaale bal tusaalaha uu u yahay ay sheegayso bal ila eg
waxaan rabaa dee waadiganoo maxay haytoy markaan soo wada soconayna waxaad igu tidhi Uhuru Kenyatta madaxweynaha dalkani Kenya Uhuru Kenyatta ayaan isagana maxay haytoy I love him very much. Uhuru Kenyatta, tuko pamoja. maxaa tiri Uhuru Kenyatta, tuko pamoja. Wow. Jubilee. Jubilee, tuko pamoja. in qof gaal ah ilaahay subxaanahu wa tacaala ku kufriyey in qof muslim ou yidhaahdo I love you very much aad iyo aad baan u jeclahay miyaa wax lagu farxo ah miyaa qofkaas saas dhahaya miyaa tusaale u noqon kara keyrkiisa kalaa waxaasha lagama yaabataa ciyaadan billaahi rabbi alcaalamiin qofka muslimka ahna in qof gaal ou dhaho I love you very much aad iyo aad baan u jeclahay waa arrin halis badan ilaahay subxaanahu wa tacaala hanaga ilaaliye fariinta koowaad waxaan u dirayaa eeda england eeda macaan miyaadan ogeyn inaad dhimanaysid miyaad hilmaamtay in nacashka lagu saaraya rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam waxa uu yihi kafaa bilmowti waacida geerida baa ku filan waano ciddaa waansamaysa geeri baa waano ugu filan eeda macaan miyaadan ogeyn in qabri lagu dhigaya miyaadan ogeyn qabriga haddii lagu dhigo waxaad ku badbaadaysid inuu yahay camalkaaga hadduu camalkaaga wanaagsanaado meeshaasi ay kaaga bilaabmayso nicmo iyo naxariis alla subxaanahu wa tacaala halkaasi ay kaaga bilaabmayso nicmo alle iyo naxariis alla subxaanahu wa tacaala haddii camalkaasi ou xumaadana halkaasi ay kaaga bilaabmayso khasaare iyo ayaan daro eeda macaan miyaadan ogeyn inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala gabdhaha addoomaadka ah oo mu'minaadka ah uu ku waajib yeelay xijaabka xijaabku waa sharaf xijaabku waa liibaan xijaabku waa waxaad ku gaari lahayd ilaahay subxaanahu wa tacaala raalli ahaanshihiisa xijaabku waa wixii aa ku gali lahayd jannaat اlfirdows alaclى xijaabka alle subxaanahu wa tacaala oo kuu waajib yeelay waa waxaad berito ugu badbaadi lahayd cadaabka alle subxaanahu wa tacaala eeda macaan miyaadan ogeyn in ilaahay subxaanahu wa tacaala la hor istaagaya adigoonan turjumaan wadan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala si leef ah aada u hor istaagi doontid uu kaa warsan doono wax walbo intaa adduunka dul saarnayd oo aada soo samaysay aada dhahday ama aada samaysayba fariinta labaad waxaan u dirayaa axmed axmed waxaa tahay inan yar oo hadda soo baxaya waxaan ku odhan lahaa oo aana kula jeclahay ilaahayna subxaanahu wa tacaala ouna jecel yahay in aad ka mid noqotid dhaninta harsanaysa harka ilaahay subxaanahu wa tacaala maalin aanan har jirin rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu yidhi sabcatun yudiluhum allahu fii dilih yowma laa dila ilaa diluh todoba waxay harsanaysaa harka ilaahay subxaanahu wa tacaala maalin aysan har jirin waxaa ka mid ahaa todobadaasi washaabun nasha'a fii cibaadati اllaah inan dhalinyaro ah oo xibnihiisa u taam ah meel walba ka dhisan wa maca dalika aysan duufsanin naf iyo shaydaan oo u tafaxeetay xooggaas iyo caqligaas iyo kartidaas asigoo leh inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala caabudo waa wax lagu farxo anigu waxaan ku odhan lahaa inan yahow waxaa tahay mid ku kadsoon adduunkani waa laba gelin un maanta waad nooshahay adduunka baad dul saaran tahay
dhulka baad dul maraysaa, beritana waa dhimanaysaa, dhulkana laga hoos marinaya. waxaa ku badbaadaysinna waxaa weeyaan camalkaaga un. fariinta saddexaadii waxaan u dirayaa waalidiintii dhalay axmed. hooy iyo aabbo, miyaynan ogeynina ilaahay subxaanaه wa tacaala inuu nagu waajib yeelay ubadkiina inaad wanaajisaan xagga jismiyan iyo xagga caqliyanba. ubadkaaga inaad wax siisid, nolol maaleedkiisa aad u keentid, wuxuu cuni lahaa, wuxuu cabi lahaa, wuxuu gashan lahaa aad u keentid, waa kuu waajib. laakiin waajibkaasi ay dadka hadda zamankani nool badanaa ay xoogga saarayn, waxaa ka muhiimsan waajibka ah in aad ubadkaaga ku dowdid waddada toosan, in aad ubadkaaga ku hanuunisid oo aad sabab ugu noqotid inuu ilaahay subxaanaه wa tacaala caabudo. qofka muslimka ah oo ilaahay subxaanaه wa tacaala ku manaystay oo siiyey oo u hibeeyey ubad, waxaa lagu waajib yeelay ubadkaasi inuu wanaajiyo. hadduu ubadkaasi wanaajiyo adduun iyo aakhiro asiga bay anfacaysaa. haddii ubadkaasi ou xumeeyana adduun iyo aakhiro asiga bay dhibaysaa. haddii adduunka aa ubadkaaga hagaajisid, adduunyada wuu ku anfici, haddaad dhimatidna wuu ku anfici. oo wuxuu ka mid yahay ubadka wanaagsan acmaasha kuu soconaysa bacda mowti. rasuulka calayhi الsalaaةu wasalaam wuxuu yidhi kulu camal ibni aadam, camal walbo ina aadam sameeyo waa u go-i ilaa ثalaaثa, ilaa 3 mooye. waxaa ka mid ahayd aw waladin saalixin yadcuu lah, ubad wanaagsan oo u soo duceynaya. intaa baa kusoo afmeerayaa fariintaasi. ilaahay subxaanaه wa tacaala dhammaanteena waxaynu weydiisanaynaa inuu nagu soo duwo xaqana oo nagu sugo, oona noo wanaajiyo ubadkeyna dhammaanteena. ilaahay subxaanaه wa tacaala waxaynu weydiisanaynaa inuu khaatimada inoo wanaajiyo. ilaahay subxaanaه wa tacaala waxaynu weydiisanaynaa ummadda soomaaliyeed meel walbay dunida daclaheeda ay ka joogaan inuu ilaahay subxaanaه wa tacaala quluubtooda isku soo duwo oo hal mid ka dhigo, ummadda islaamka o dhanna sidaa uu ka dhigo. jazaakum allahu khayr. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. اللهم من يرى هذا المقطع ومن ساهم فيه ومن أعان على نشره، اللهم فاغفر له ذنوبه كبيرها وصغيرها، جلها ودقها، عظيمها ودقيقها يا رب العالمين. kuguma qasbaayo inaad faafiso, balse allah dartii ku faafi.